أن أوجه خصوصا جزيل الشكر والعرفان بهؤلاء الضيوف الذين أتوا من مسافات بعيدة تتجاوز مئات الكيلومترات وأضحوا لنا من وقتهم وأعمالهم. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى إخلاصهم وحبهم لنا وتوجيهاتهم الإيجابية، فأقول لهم جزاهم الله خيرا لما تقدمون لنا من تعليمات قيمة وتلبيتكم النافعة لحضور ومشاركة هذا الحفل الخيري. فأقول لهم تكرارا ومرارا وبقلب صادق لا ننسى شرفكم واهتمامكم لنا وحسن إصغائكم لنا، فالله وحده هو القادر على جزائكم لنا ولكم. حرف بو كتيرسينكم أما حرفت با كعامسن حرفت أما قالي وحقوقر أما هديه بدن كده ليه دبوك وشغلتك أما ميشارك حرفت أنا كي أنا كمان هادو أنا وحرفت أصلا معين بدي بعد حوجا ولي لا وحي دبي هيكون صورون مع الدبي ناصر مركز ساس حرفت أصلا ربنا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الحمد لله الذي اجتمع لنا هذه الحفلة بأمن وسلام، فكم بلدان لا يجتمعون مثل هذه الحفلة. وأصلي وأسلم على النبي الأمين الذي بسط الله الأمن بسببه حتى يسير الراكب ولا يخاف إلا الله وذئب على غنمه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تختل بمالك والها عنه فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تاتا. سيندغ عنك علمك في ملائي ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشديد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي البون ستعلمه إذا ضاها قرأت. وقل يا تجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. الحمد لله القدير الأول مصرف القلوب والأحوال، اللهم اشرح قلبنا الإسلام ونتبع صراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقه وارزق لنا اتباعه وفهمه. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمسي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم لحسن سماعكم وبالله التوفيق وعليه الشكران. waxyaabaha aadka u baahidu ay u taagan tahay waxa kamid ah goobaha waxbarashada. malaa masaajidada imika aad baa loo dhisaa, laakiin goobaha waxbarashada siiba macaahidda lagu barto culumta shareecada ee soo saaraya dad culimo ah oo khutaba ah oo mudarrisiin ah oo ducaada. goobahaas u baahan runtii inaynu aad isaga xil saarno inay ka bilaabmeen magaalooyinka waaweyn. farxad bay noo tahay siina socdaan waa wax aad lagu farxo oo dadkaynu u baahnayna jahliga ummadda ka saaray bay soo saarayaan. waxaa ka mid ah machad ibnu kathiir lilculuum sharciya oo ku yaala ceerigaabo oo maaragtay sheekha cali ay mas-uul ka yahay. ragga runtii iyo inamada rag iyo dumarba da-yarta ka soo baxday wax aad loogu farxaa bay ahaayeen, sida ay maaragtay kutubtii diiniga ahayd iyo kuwii luqada ay dusha uga hayaan iyo qur-aankiiba wax aad loogu farxa weeye. marka wuxuunaynu dhiiri gelinaynaa un dee macadkaa dhismihiisa iyo sidii u saldhigi lahaa in laga qayb qaato oo qofku marka uu waxaan bixinayana uu u niyoodo sadaqo jaariyahoo waalidkiisii uu soo diyaarinayo. halkaad adigu meel keliya dhisi lahayd waxa ka suuq roon kan imikana dhisan in la iska kaashado. macahadkaanu maantay istaagnay aanu tagnay oo macahadkii ahaa ibnu kathiir لعلوم الشرعية وأنا إسقنا ما أنت جوجني
oo dadka dhiganayana ay ahaayeen 338 maantay inta ka qalan jabisana ay ahayd oo maaragtay ijaasaadka la siinayay 69 horta waa idin mahad celinaynaa dadaalka culimadiina iyo odayaasha iyo arinta ka wadaan waa idin mahad celinaynaa nadwada aad ka wadaan iyo nidaamkiina waa idin mahad celinaynaa waxaana u soo jeedinaynaa dadweynaha ama ha joogeen ama hana dhageysteen macadkaas way intaas oo qof ay dhiganayaan oo culumtii sharciga ahayd lagu baranayo iyo maadaadkii kalaba dadweynaha waxaan leeyahay meeshaas waxay u baahan tahay dhisme dadka meesha joogana meeshuna waa ku xiriirtay meeshana dhismay u baahan tahay dad siyaada hadda gobolkan aan joogno oo gobol runtii yara durugsan imaanshaha iyo socodka iyo cagtuna ay ku yar tahay maanta fursaddan waxaan uga faa'iideynaynaa walaalaha dibadda ku jooga iyo kuwa gudaha jooga labaduba in ay ka kaalmeeyaan maanta diintii ehelkeedii mooye cid kale u shaqaynaysaa ma jirto macahadka ibnu kathiir ee culumta sharciga lagu baranayo ee midhihiisina maanta aan wax ka aragnay ilaahay subxaana watacaala bilaash baa lagu dhigaa culimada joogtaana dadaal badan bay bixinayaan dee meel walba hay-ad gaalaha maraysee bal dadkii ahlul khayrka idinkuna khayrka dhinaciina sii qabsada wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين عاوة وحن هل كان أفضلنا إن وربحين يرى كوبان كبحنا معد ابن كثير مقالة عرقاوة معد كاسو runtii ay ka soo baxayaan ama wax ku baranayaan dhalinyaro fara badan oo culimo maarta noqonaysa mustaqbalka insha Allah dacwada ee diinta fidinteedana ka qayb qaadanaysa sida la socotaan wax ma la maal geliyo wax uu qiimo badan bini aadanka hadaad dhulka maal geliso ama aad beeraha maal geliso ama xoolaha maal geliso mid walba waxa weeyaan waqti yar oo kooban ayaa maalgelinta nafcigeeda la helayaa laakiin waxa ka qiimo badan in dad la dhiso oo dad la soo saaro oo dad wax tara oo amaano leh oo aqoon leh oo cilmi leh oo ummad wax tari kara in la soo saaro marka macadkan sanadihii uu hadda dhisnaa runtii dadka ka soo baxay waxay noqdeen dad runtii intaba isku darsaday amaanadii iyo aqoontii iyo cilmigii loo baahnaa isku darsaday waxaana filaynaa inay wax weyn ka tari doonto guud ahaan ama Soomaalida guud ahaan qaabka u nool yihiin laana waxa weeyaan dadku haday isbedelaan waxa weeyaan iyaga isbedelka keeni kara dalkeenu waa dal barwaaqo ah abaar dalman nama hayse abaar dad baan haysa hadaan dad helo dad wax tar wax qaban kara hadii la helo waxa weeyaan wax walba waa la qabsan karaa marka warbixinta macadka oo faahfaahsan waxaan ku soo dhaweynayaa Xaaji Xasan Axmed Cabdalle oo idin faahfaahin doona laakiin taan jeclahay inaan idinku booriyo waxa weeyaan war hadaa maartay xoolihiina horumarsanaysaan iyo hadaa sadaqa la baxaysaan waxa weeyaan sadaqa jaariya ayaa barnaamijkan noqonaya laana wuxuu soo saaraya dad cilmiga sharciga ah maartay baranaya oo fidinaya oo dadka maartay runtii noloshooda wuxuu ka bedelaya وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا ليال سيدا وشاقي الأخ دكتور محمد أحمد محمد دكتور شيني ورنتي lafdhabarta ama tiirarka waaweyn ee maxadkanu yani bacdallaahi uu ku tiirsan yahay sidaa uu igu soo dhaweeyey waxaan jeclahay inaan warbixin kooban aan ka bixiyo maxadka ibnu kathiir lilculuum alsharciya waalcarabiya oo laga aasaasay magaalada ceergaabo sanadkii 2009 awalkiisii runtii duruufaha maxadka loo aasaasay
waa la wada dareemi karaa waa baahi ka muuqatay xagga cilmiga sharciga iyo luqadda carabiga oo runtii la oran karo markii la arkay in dhalinteennii hujuum badan lagu yahay sidii diintii looga fogeyn lahaa oo loo taqriibin lahaa in bal yacni lasoo saaro jiil dhalinyaro ah oo u kaca ama u quma ina ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii intay qaadaan iyana noloshoodii ay wax ka beddesho dadkana ay gaadhsiiyaan runtii duruufaha keenay kuwaasa ugu waaweynaa maxadkaas sidaan hore u sheegay 2009 baa la furay waxaa hadda ka qalin jabisay dufcaddiisii koowaad waxay ka baxday maxadkaa ka qalin jabisay sanadkii hadda ina dhaafay 2011 waxaa ilaahay subxaana watacaala mahadii ah oo ilaahay subxana watacaala arrin loogu mahadnaqo ah in isla waqtigaasba ay magaalada Ceergaabo ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey in laga aasaaso kulliyatu shariica oo ay dufcaddii koowaad ka soo qalin jabisay maxadka isla markiiba ku wareegtay kulliyatu shariica oo hadda sanad ay ka dhiganaysay intii kale ilaa muddadaas laga soo bilaabo 2009 maxadku waa furaa waxa uu sanad dugsiyeedkiisu uu yahay ama qaab dugsiyeedkiisu qaabka waxbarashadiisu ay tahay 1 sano oo tamhiidiya iyo 3 sano oo ardaygu uu maxadka uu dhiganayo waa ilaahay mahadii si fiican bay tacliintiisu u socotaa waxaa ka howlgala macallimiin ilaa 8 macallin baa ka howlgala iyo maamulahooda waxaa dhigta hadda waqtigan xaaliga ah 650 arday baa dhigta oo maraaxisha kala duwan ee laga soo tamhiidiga ilaa sanadka saddexaad ee maxadka ku kala jirta waa wax weyn baa laga gartay runtii dacwadda magaalada iyo hareeraheedaba bal waxa la oran karaa waxa midhihiisa iyo tamaradiisa soo gaadhay gobollo ka fog Ceergaabo ka fog sida gobolka waqooyi galbeed ama Hargeysa oo kale oo ardaydii maxad ka qalin jabisay ay macaahid ay yani ka fureen waa ilaahay mahadii runtii baahida maxadku waxa la oran karaa maadaama aan ardayda wax yani fi laga qaadin waxa macallimiintu ay dhaqaalaha maxadku wuxuu ku tiirsan yahay dad muxsiniina oo walaala ah oo maxadka taakuleeya runtii markaa baahidiisu waxay isugu jirtaa mid dhisme oo maxadku aanu lahayn yani hoy rasmiya oo u madax bannaan oo mustaqila aanu lahayn waxaa ardadu ku kala dhigataa 2 qaybood ayay ku kala dhigataa maadaama yani hal hooy oo ardada kulminaya aanu jirin inamaduna waxay ku dhigtaan meel habluhuna meel bay ku dhigtaan taas waxay ka liftaa in macallinku marka uu xisad u galayo gabdhaha ama uu inamada u galayo inay waqti ka qaadato inta uu si kala soconayo labada qaybood inta uu si kala soconayo marka baahida ugu weyn ee maxadku leeyahay waa baahi dhisme isagoo haysta maxadku dhowr buqcadood ama dhowr dhul yani dhowr qaybood ka kooban haysta oo meel ay tahay 20 lagu dhuftay 30 mitir meel kale ay tahay 20 lagu dhuftay balaco 20 iyo dherarka oo ah iyana yani waxa 16 mitir meel saddexaad ay tahay 8 lagu dhuftay 15 saddexda qaybood waa haystaa oo qaybina qabyo ka tahay qaybina aanay yani bacdallaahi ay sugayaan dad walaala ah oo muxsiniina oo ilaahay subxaanahu watacaala dartii wax ula baxa oo maxadkaasu maadaama uu yahay maxad yani lagu fidinayo diinta islaamka cidda uu sugayaana uu yahay dad uun walaala ah oo ka dhiidhiya arrinkaa ka yani wax la qabashadiisa iyo waxtarkiisa runtii baahiyaha ugu weyn ee maxadku leeyahay waa baahida dhismaha baahida labaad waxay tahay de maadaama uu yahay mu'asasad tacliimiya oo istihlaakiya oo yani aan fee ama dakhli aanu ka soo gelin ardayda waxa uun lagu yani macallimiinta lagu bixiyo oo maxadka lagu socodsiiyay ay tahay dad walaala oo muxsiniin ah yani taakuladooda wuxuu maxadku u baahan yahay cid walba oo walaala ah oo
ka qayb qaadanaysa maxadkaas iyo socodsiintiisa iyo tabantaabintiisa maadaama uu yahay mu'asasad tacliimi ah oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisii kor loogu qaadayo. saas darteed waxaanu soo dhoweynaynaa cid walba oo walaala ah oo nagala qayb qaadanaysa cilmigaas shareecadda islaamka iyo nashrintiisa iyo fidintiisa oo runtii la oran karo midhihiisii waxana laga goosay wax badanna insha allahu tacaala waa laga rajaynayaa. وهذا ما أقول. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.